iyadoo laga duulayo daadejinta nidaamka dowladnimada ee gobolka Banaadir ayaa maanta gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo wuxuu magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka furay tababar ku saabsan qariirinta iyo qiimeynta la tashiyada bulshada degmada Boondheer oo ka mid ah 20 degme ee gobolka Banaadir. Kulaweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir xubno ka socdo horkacaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Boondheer xubno ka tirsan maamulka degmada Boondheer iyo sidoo kale bulshada rayidka ku nool degmada Boondheer. tababarkan oo loo furay maamulka iyo bulshada degmada Boondheer ayaa looga gol leeyahay in la baro habka xalinta khilaafaadka iyo wada shaqeynta habka dowlad wanaagga si ay bulshada iyo degmada ugu wada shaqeyn lahaayeen iyo u diyaargarowga doorashooyinka golayaasha deegaanka. waxaa madashan soo qaban qaabiyay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir waxaana loogu talagalay in la gaarsiiyo tababarada noocan ah dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Boondheer Cabdullaahi Sheekh Cabdi Jahwan isagoo u mahadceliyay gudoomiye Maxamed Axmed Diire Yabo iyo maamulka gobolka Banaadir dadaalada ay gelinayaan in nidaamka dowlad wanaagga si bulshada ay u helaan adeeg dowladnimo oo sax ah. aad ugu faraxsanahay waan ka mahadcelinaynaa fursadan qaaliga ah oo 20 degmo loogu talagalay in maanta shacabka reer Boondheer ee fursadaas nasiib u yeelatay alxamdulillah ilaahay ma hadaas iskale mudan gudoomiye waxa halkan fadhiyo dadkii bulshadii taladii ka go'day ee reer Boondheer ayaa halkan loo soo xulay hadii ahaaleed councilkii degmadii oo wada joogo sidoo kale qaybaha bulshada hadii ahaaleed dhalinyaradii haweenkii sportskii guddigii nabadda sidoo kale bahdi waxbarashadii macallimiinta dugsiyada quraanka dhammaan qof walba oo talada shacabka reer Boondheer wax ku leh halkan maanta fadhiyaan ujeedka oo fadhina waxa waaye faahfaahin laga bixiyay waxa uu horay allahay in la qariideeyo khilaafaadka ka jira maadaama shaqo marka la haayo waxa jirayso culeysyo iyo qabsoomaan maadaama shaqooyinka socday qabka loo xaliyo iyo intii la yaray karo midaasiyati iyo sidoo kale dowlad iska wanaag inaan ka qayb qaadan karno iyo u diyaar garowga doorashooyinka la rajeynayo in golaha deegaanka oo liso. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo oo tababarkan si rasmi ah u daafuray ayaa si adag ugu nuuxsaday xal u helidda khilaafaadka maamulka iyo maamulada ay ka warqabaan bulshada ay hoggaanka u yihiin. halkan maanta isugu nimid tababarka oo ka hadlaya bulshada iyo sida ay u wada noolaaleed dowladnimada sidii ay ula noolaaleed sida maaragtay degmadu ay u noqon lahayd degmo ka bedelan degmooyinka dabcan inahaasa maaragtay la isbaraya iyo dadka in la isbaro xaqiiqatan reer Boondheer waxaan u maleynaa waa iswada yaqaaniin inta badan degmadu marna waa koobanta meel oo magaalada maaragtay dhexdeeda qof kasta madaxtooyadii qarkeedii yahayna ku taala marka waa bulsho nabadeed dabcan waana bulsho markii hadda la fiiriyo taariikhdii hore magaalada Muqdisho iyo meesha uga jirtay dowladnimadii iyo deegaaneyntii maaragtay xamarna weligeed udub dhexaad u ahayd haddana sidii weli udub dhexaad ugu tahay marka waa dabcan intaas marka la isku sheegayaa sidii maaragtay degmada loo hormari lahaa sidii dowladnimada loo garab istaagi lahaa dowladnimada in la garab istaago waxa lambar 1 ka ah waxa dowladu maaragtay ay rabto inay la dowladu sideedaba waa bulsho isku tagtay ay dowladu ka koobanta una shaqeyda marka amniga in dowladii lagala shaqeeyo lagu garab istaago canshuurihii iyo maaragtay sidii bulshadii loo fahansiin lahaa in dadkii loo sheego in maaragtay arrimihii kale ee bulshada dadku jidadka loo dhisaayo iyo shaqada dawladdu u haydo inay jidadkii la nadiifiyo
nadaafadii laga shaqeeyo in laga shaqeeyo maaragta wax allaale wixii dhib ku ah degmadaas inay bulshadii iyo maamulka ay iska kaashadaan waxa dhan oo loo socdaa waa intaas haddii marka bulshada iyo maamulku ilaa maamulku wuxuu wakiil ka yahay dawladdiiyo wakiil ka yahay maamul oo bulshadiisii ah ka warqabin maamul ma noqon karo marka bulshada iyo maamulku markay iska warqabaan dad wada shaqeeyo yihiin waxaa hagaagi kara wax allaale wixii laga rabay bulshada meeshaas ku nool oo Boondheera ku nool wixii dawladnimada laga rabay ay dawladdu ka helaydaa marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay in intaan haddaysa is aqoon ay isbartaan inay reer Boondheera yihiin dad maaragtay darisa yihiin annagu hadda waa ku faannaa xaafadihii aan ku soo kornay waa nooga bedelan yihiin magaalada qayb inteeda kale dadkii aan dariska ahaa jirnay waa nooga bedelan yihiin dadka kale dadkii banooniga iyo aan wada ciyaari jirnay dadka kale waa nooga bedelan yihiin ayadoo maaragtay dadkoo dhan walaalo ay yihiin ayaa haddana maaragtay guriga maaragtay kugu dhegan iyo midka kale oo halkaa kaaga dhegan labadaas guri waxay kaaga sokeeyaan kuwa kale oo dariskaada kale ah oo qaybaha kale waa kaaga sokeeyaan marka sidaas ayay marka degmaduna ayay degmooyinka kale intaanu hadda Boondheera ka wada yimaadeen marka Boondheera markii la yiraahdo waa iskaga sokeeyaan degmooyinkii kale waa inay marka yacni wixii culayskoodaana ay wada wajahaan wixii maaragtay wanaagoodaana iyo garab istaag oo wanaagga la garab istaagayana waa inay iyadana qayb ay ka qaataan marka waxaan isleeyahay marka waa tababarkan waa tababar fiican oo wax badan laga faa'iidi karo sideedana bini'aadanka waxaa la rabaa in qofka inay aqoon la'aan hayda maahan laakiin in markii ayaan la joogaba wax la isxusuusiyo oo la yiraahdo waxa taqaanid haba lagu soo celiyo oo lagu sheego waxay ka mid noqonaysaa inaad maaragtay qaraar cusub ama maaragtay kacaankii waa laba kaclayso lama dhihi jirin inaad laba kaclaydid oo hididiilo cusub aad higsatid weeye macnaheedu maahan inay aqoon la'aan ku haydo in maaragtay dadka markaas wax ku baraya ama dadka wax ku dhigaya inay ka aqoon badan yihiin maaha marka halkaas ayuu maaragtay ku qotamaa barnaamijkaanu bulshadu markay ayadu is ogoshahay oo maamulkii iyo bulshadu isku xiran tahay waxa soo haro dhanna waa ka wada shaqeyn karaan doorashooyin deegaan haddii la rabaa laga shaqeyn karaa ay ka wada shaqeyn karaan maxaa yeelay dee waa bulsho nabada is ogol maamulkooda ay isku xiran yihiin wixii caqabad ku ah ay maamulka u sheegtaan maamulkuna waxaa la rabaa bulshadaas wixii caqabad ku ah inuu asaguna xalliyaa laga rabaa Ismaaciil Ibro Xasan wararka Somali Cable Muqdisho usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas